السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي aad baan idin salaamay. Waxaan rabaa in la iga gaarsiiyo fariintan in dani la iga gaarsiiyo ma rabaa. Balday waryaadeen adduunkan ma aragtay walaa adduunkan waa akhrisamaan. Maalinba qof baa iska hadlaaya madaxweyne isku sheegayo maxay haytaanaya anu madaxweynena uma aqoonsanayo dadini. Baldani iyo leeyahay wuxuu ka hadlayaa riditaankii ra'iisul wasaare Qayre. maxaa ka qusaya isagu baarlamaanka Puntland markuu ridayay muxuu sameeyay dani war dani isku xishooda miya war dani maxaa ka qaldan war maxaa dani caqli malaha miya wallaahi bilaad baan uga xumaa in maxay haytan qof dhan oo madaxweyne lagu sheegaya oo wuxuu horta aslan madaxweyne lagu ma sheegi karo de wuxuu sameeyay wixii uu sameeyay baaba la ogaayay maxay tan inuu iska hadlano de taasaa ku kaliifaysa baarlamaanka Puntland ma xaq buu ku riday maxay tan dhooba daarad haddaba waxa la rido qofka bini'aadanka waa loo dhiibtay xilka waana laga qaadi karaa laakiin si dadkii maxay tan intuu xilka ka qaaday oo xabad kaga adeegay oo maxay tan dhiig iyo meedkii yaalo doorasho ku dul codeeyay la wada ku dhaaray makaasa madaxweyne lagu sheegi karaa makaasa inuu maanta ka hadlo xuquuq dad oo yaado dad baan doodaya maxay tan ra'iisul wasaare la riday هلا ريدو ما هنا وحده دونها lagu sameeyay maxaa ka galay ya waxba de ra'iisul wasaaraha ayuu ka hadlay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dad baa xilka u dhiibtay dadkii u dhiibtaana ka qaaday dhigna kuma daadan dadna laguma digin bal daniyo ad halka joogtaa wala adiga caalamka hadii maxay haytaan xuquuq iyo jir lahayn maxay tan kala dambeyn maxkamad heeg baa lagu la tigsan laakiin waan ka xumahay Soomaaliya kala dambeyn ma jirto yaa reer daniyo iska hadlo والله waa laga fiicay waxaan leeyahay dani adeer gacaliye ana warta madaxweyne kuma aqoonsanay ninka Puntland joogan ku aqoonsanay laakiin iska aamus ma qoran laha oo iga talay iga gaarsiiya fariinta dani si sheer garay asxaabay maanta dhiiga ay u kacsanay qof kastaba hadduu yiraahdo waxaan ka hadlayaa dan qof kale iyo waxaan ka hadlayaa madaxweyne ra'iisul wasaare la riday oo asaga ninka tiisa dal yeela waa tu kale ku dara wardani isaga oo Puntland tuu ka dhigay la ogaa uu maanta ka hadlayaa ajendayaal dad kale iyo dawlado kale aad baan uga xumaydin hadii mucaaradnimadu yani mucaaradka uu farmaajo ku yahay hadii mucaaradnimadu ay wax kasta inaad ka hadasho ku geliso waa dhibaato adduunka laakiin si mala wiilaaw de mala afkiisa dhigiisa isma noqona aad baan uga xumahay asxaabtayda aad baan idin salaamay barnaamijkeena si share gareeya walaashin shankaroon وعليكم السلام aad baan idin salaamay asxaabtayda maanta waxaan ku yiri yaade waxaan ku yiri dhid bay ka socdo dhiigii waa boqolkii tagay bye